time, who gave us his, precious time today to actually mark this important historic day with us. And we are so, so grateful for Birmingham City Council. Please welcome with me, Councillor Shafiq. Ambassador, distinguished guests, friends, good afternoon and Assalamu alaikum. And it's an absolute honor and privilege to be here this afternoon to celebrate the Somali Independence Day. As has been said before, Birmingham is very diverse and very welcoming city. For many, many years, people from all over the world have been coming here to make a better life for themselves and also for their families to follow. We've got different cultures, different communities living here. In fact, we've got 187 different languages are spoken in Birmingham. And we're always very privileged to celebrate each other's culture. And today, I want to take this opportunity to say a special thank you to Birmingham Somali community for everything they're doing in all walks of life in Birmingham and beyond. With these words, I also want to take this opportunity to say well done to each and every one of you who come out with your blue and white flags. You look absolutely amazing, especially all the ladies. And my message to all the men is next year you should also come in blue and white flags. So I hope to see you in all the flags next year. With these words, happy Independence Day, and I wish you every success. Thank you. And without further ado, I would like now to welcome our Excellency Somali Ambassador to United Kingdom. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I want to express my gratitude to the organizers of this great event and the Deputy Lord Mayor. Secondly, I want to say my few words in Somali. waxaan ujeedaa dadka inta badan Soomaali weeye waxaan u maleynayaa dhammaanteen waxaan ku wadnaa Soomaali waxaan celebrate gareynaa oo ciideynaa maalintii midnimada Soomaalida iyo ay qaadatay xornimada koonfurta Soomaaliya waxaan rabaa in la ogaado maanta ma aha maalinta xornimada Soomaalida ma Soomaali waxay jirta qaadatay xornimada 26 Juun oo isla sanadkii 1960 maanta waa maalintii koonfurta Soomaaliya ay qaadatay xornimada ay midoobeen waqooyiga iyo koonfurta British Somaliland la oran jiray protectorate British Somaliland iyo Italian Somaliland ay xoroobeen waa maalin qiimo weyn u leh dalka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sida dadka ay sheegaan iga horeeyay ma iska imaan xorriyaddu iska imaan dhiig baa loo daadiyay dagaal baa loo galay halgan dheer baa loo galay oo ay bilaabeen dhalinyarada Soomaalida la oran jiray daraawiishta oo socday 22 sano oo la dagaalamayay Ingiriis iyo Ethiopia iyo Talyaani isku mar la dagaalamayay taasoo markii dambana ay ka qaadeen oo dhaxleen dhalinyaradii isu timida Soomaaliyeed oo SYL la baxay oo ama dhalinyarada liigii yani dhalinyarada Soomaaliyeed dhinaca waqooyiga SNL baa ka dagaalamayso SYL ay isku fikir ahayeen iyo isku ujeeddo ahayeen marka maantay dhalinyaradiina yaryar oo ku naaloonaya runtii gobonnimo walaw runtii aan challenges badan ay jiraan oo maanta halkaan aad joogtaan dalkiinii oo maaragtay dhibaatada ka dhacday ama dhibaatada weli ka jirta ay idin keentay inaan ku imaan rabitaankiina haddana maantay waxaan nahay dal xor ah oo calan leh oo caalam ka jira oo active ah oo Security Council ku jira oo African Security Council ku jira marka fursadaha xornimadu keentay waxaa la socda caqabado ama challenge la rabo qurbajoogtiinu inaad ka qayb gashaan sidii loo soo afjari lahaa waxaa ka mid ah arrinta maanta dalkeenu waa kala gaartay waraabihii waqooyi waxbay tabanayaan dalka waa ka maqayan ilaa xad waxaa rabaa inaan maanta ka shaqeyno sidii loo soo dubi lahaa sidii loola cabbi lahaa sidii wax ay ku qancaan oo markii horeba ayaga qanaacadooda lagu sugay ayagoo xornimada naga horelay
inaan maantana aan gaaro gacanteena iyo afkeenu si wanaagsan u gaaraan baan doonayna ma doonayo hadalkeenaan ku dheereeyo xafladda bisha 3 ay jiri doontaa baan filayaa waxaan rabaa inaan u mahadnaqo ayaan oo ah gabar yar oo reer Birmingham waxaan ka baqayaa inay offense u qaato gabar yar markay raado waa qof weyn waa qof maskax weyn waxaan maalmood ka qayb galay shir ay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ingiriisku soo qabanqaabiso Global Partnership Conference la yiraahdo oo 190 waddan isku yimaadeen ayaan baa furtay reer Birmingham ay ogtay kala qof kasta oo gadaashad hadlana wuxuu tii reference gareynaya gabaygeeda waa xaqiiqo jirta waa marka dad badan oo iyadoo kala iyo iyada idin jooga dhalinyaradiina dhiirigeliya ka faa'iidaysta ayadana si gaar ah ugu faana runtiina maxaan ku yiraahdaa ayada iyo Soomaalnimo dhalinyarada Soomaalnimo sameeyay oo isugu tagay oo tirada badan oo ay isu keentay baan dhici kadaya kuwa la mid ah waa ubaxii iyo indhihii Soomaalida way meel kasta ay joogaanna waxaan rabaa inaad gaarsiisaan ayaan insha Allah aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullahi السلام عليكم دمانتين هذه أبردي السلام يا والفرح سنة هاي إنا كسوقات إلي حفلة قرة بدن أكون دبالتك إنه دلكينا إيو دقن كينا بقى ما شاء الله سودو هذا Let's go guys, I'm not going to stand. وانا لما براني حقرلي وحقوق بول وانا لما براني حقرلي وحقوق بول حنتي معا وامدا هوي لقا أورني حنتي معا وامدا هوي لقا أورني Somalia ما شاء الله Big applause for our King Chama, please. That was a very historic moment. The first time the Somali flag has been raised here in Victoria Square at Birmingham City. Thank you so much, everyone. دمانتين أبد ما هتنتهين. I just want to say for the rest of the day I idinku sheegay waxa dhacaya because the civic day alhamdulillah we've raised the flag. The next step is inside the council chambers we will be doing a roundtable discussion with some of our honorary guests around the role of British Somalis, our role here and horumarkeena caqabadahana haysto because in our horumar la gaaro we have to talk about things. So there is limited capacity, but first come, first serve. Inshallah, we'll be heading into the council chambers. And then tonight, the library, which is the largest library in Europe by square meter, is turning blue and white at exactly 9:20. Majority. Happy 1st of July, guys. Thank you so much. Gracias.